الرحمن الرحيم دمان مدة الصومالية ملك جوغان قارهان كوب بنتلان waxaan maanta oo jimco ah magaalada Boosaaso ku qabanaynaa war saxaafadeed nuxurkiisu uu ku salaysan yahay wada tashi muddo 2 maalmood golaha wasiirada ee shir ay ku yeesheen magaalada Boosaaso ka soo baxay waxaan rajaynayaa markuu war saxaafadeedkaas dhamaadana isaga oo qoraal ah inuu wadbaahinta soo gaari doono sida la wada socotaan muddadii u dambeysay waxaan ku maqnaa dalka Kenya halkaas oo aan shirar aad u fara badan oo ku saabsan wada tashiyo dawladaha walaalahan nahay iyo kuwa saaxiibadan nahay iyo kuwa Soomaaliya danaya ee safiirada kule badankooda aan ku kulannay siyaasiyiin badan oo Soomaaliyeed oo heerar kala duwan isugu jira kuwa xilal hore soo qabtay iyo kuwa xilal hadda haya kuwa golayaasha ee labada aqal ku jira iyo dad fara badan oo danaha Soomaaliya runtii walwal badan ka hayay ayaan halka ku kulannay waxaan sidoo kale ku kulannay madaxweynaha dawladda Jubbaland iyo madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed oo labadoodaba xilligaas aan jooga halka ku sugnaa waxaa runtii soo taraya walaac badan oo ku aadan mustaqbalka arrimaha Soomaaliya iyo meesha ay hadda marayaan sidaad la socotaan dalkeennu 30 sano u dambeeyay wuxuu ku jiray xaalad runtii marxalado kala duwan ah xaalado dagaal sokeeye ay dalku haleeleen dadka Soomaaliyeed badankoodu kala irdhoobeen dhiig fara badan oo ku daatay tacadiye badan ay dhaceen waxa markiiba barbar socday wax garad fara badan iyo dad badan oo Soomaali u soo gurmaday oo ka shaqeynayay sidii wixii dhacay looga gudbi lahaa waxyaabihii sababay loo soo afjari lahaa dib ay dalku u qaban lahaa waxaad ogtiin 10 sano ee u horeeyay Soomaaliya shararkii dhacayay laguma guulaysan unug dawladeed oo amba qaadi kara 2000 ayaa markii ugu horeysay Carta waxa lagu yagleelay maamul kaasoo inta badan dadkii dalka Soomaaliya deegaanadiisa ka talinayay ay diideen xilligaas oo maamulka Puntland iyo maamulka Somaliland oo kaliya wax maamul ah oo nidaam dawli ku shaqeeyay ka jireen deegaanada Soomaaliya inteeda kale tana ay hogaamiyaal bulshadooda markaas sabab kasta ha u joogaane matala ay joogeen iyo bulsho rayid ah iyo dad siyaasiyiin ah oo markaa maamulka gudaha dalka aan saameyn weyn ku lahayn shirkaas inkastoo sida loo kala aragti duwanaa haddana wuxuu helay ta'yiid caalami ah waxa markii ugu horeysay lagu guuleystay in United Nations-ka si rasmi ah looga qayb galo calankii Soomaaliya dib loo soo iqleelo loo taago guud ahaanna halkaas ka soo baxdo dawlad caalamku aqoonsan yahay in kamida waxyaabaha u waaweyn oo u baahan in wax laga qabto oo runtii isbedelada abuuray waxay ahayd inaysan ku filnayn caalamka oo aqoonsan kaliya laakiin ay u baahan tahay dadka Soomaaliyeed inay wada hadal iyo isqancin dheeraad ay galaan iyagoo ka tashanaya ayahooda waxa halka ka dhashay shirkii Embagaati 2004 oo kii Eldoret oo isku xigay ugu dambeyn dadka Soomaaliyeed falanqayn dheer waxay ku heshiiyeen in nidaamka federaaliga ah uu yahay nidaamka kaliya ee dadka Soomaaliyeed ay ku heshiin karaan oo ay wax ku qaybsan karaan oo dawladnimadooda ku dhisi karaan fursadna u noqon karta dadka walaalaheena ee Soomaaliland oo runtii ku dhawaaqay inay gooni isu taageen loo heli karo fursad ay dalka dib ugu soo noqdaan
iyaga oo marka si dhab ah loo wada hadlo tabashadoodana laga jawaabo laysna qanciyo maxaa waxaas loo sameynayay waxaa la tiigsanayay in la helo dawlad Soomaaliyeed oo degan oo sal adag oo dadkeedu ay ku qanacsan yihiin una adeegta lana sifooyin sharci ah iyo qanaaco shacbi ah runtii Puntland oo 98 la aasaasay marxaladahaas soo socday intii 8 sano ugu horeysay waxay ku jirtay marxaladihii dalka Soomaaliya haleelay inay iyadu ay ka badbaado iska difaacdo cidii markaas duulaan ku ahayd dadkeeda ay wada tashi geliso xaaladahooda gudaha ay xalistaan khilaafaadkii yimid ay dhinac isaga dhigaan kadibna waxay ku heshiiyeen inay dhistaan maamul dawli ah oo leh sifo sharci ah iyo mid qaanuuni ah iyo mid taageero shacbi ah taasaa sahashay in maanta meesha aan joogno iyo heerka ay Puntland joogto mirahaas ayaan guranaynaa waan ku faraxsanahay taariikhdaas dheer ee Puntland soo martay dadkii ka soo qayb qaatay qayb ka mid ah maanta dadka halka jooga inay yihiin waxaan rajaynayaa inta kale oo maqanna meel kasta ay joogaan inay weli diyaar u yihiin inay ilaaliyaan deganaanshaha iyo midnimada dadkooda dowrkaas Puntland wuxuu isugu jiray xilliyadii burburku dhacay waxa ay Boosaaso iyo magaalooyinka waaweyn markaa jiray ay martigeliyeen dadkii walaalahooda ahaa ee deegaanadooda ay dhibaatada ka jirtay waxay u fidiyeen taageero dhaqaale waxay u fidiyeen taageero talo waxay u fidiyeen taageero siyaasadeed iyo garab istaag waxay qayb ka qaateen xallin khilaafaadkii waxa u baahan in la xuso iyadoo 3 sano dagaaladii qaraaraa iyo isnacaybkii iyo kala irdhowgii jiray dalka in madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Allah u naxariistay oo Muqdisho ka degay oo xilligaas oo Jeneraal Caydiid ahaa dadka dagaalada ugu badan hogaaminaya dalka iyo dadkii kale ka diiday shirkii Addis Ababa inuu isagu u sameeyo sacrifice oo dalkiisa uu Muqdisho ugu tagay oo runtii kadibna ay u sii gudubtay in laga wada xaajoodo khilaafaadkii u dhaxeeyay ee khaasatan magaalada Gaalkacyo kadibna lagu soo gabagabeeyay isfaham iyo wada noolaasho iyo heshiis arrimahaas oo dhan Puntland waxay u bixinaysay inay mar walba ilaaliso midnimada dadka Soomaaliyeed iyo wada jirkiisa maxaa xukuumadda hadda jirta runtii laga dhaxlay runtii waxaan aad uga xunnahay taariikhdaas dheer ee dadka Soomaaliyeed soo mareen oo ku saabsaneed garnaqsiga maaragtay isqancinta iyo hor u socodka oo ahayd in wixii lagu heshiiyay la wada ilaaliyo waxa aan heshiiska markaa lagu hayna la wada fogoro la isugu dulqaato ilaa laga qancayana la gaaro waxay Puntland ku qanacday oo muddo dheer ay u dulqaadanaysa iyadoon raalli ka ahayn nidaamka siyaasadeed dalka ku jira ee 4.5ka iyadoo laga soo bilaabo carta ilaa 2006 mar walba diidanayd in sidaasi ay tahay sida xal waara keenaya laakiin waxay mar walba u tanaasuleysay dadka badan oo Soomaalida ah oo tabasho badan qabay oo u baahnaa waqti ay ku fakaraan waqti nabad ay uga hadlaan iyo hab ay fahmi karaan inay wax ku qaybsadaan oo aanan kii saxda ahayn laakiin inta waxay u dulqaadanaysaa Puntland in la gaaro maalmaha kamida in dalka nidaamyada caalamiga ah sida loo yaqaano habka matalaada oo ku salaysan ama juqraafiga ama tirada dadka ama waxyaabaha kale lagu qiimeeyo in halka loo gudbo oo dawlad casriya oo ku dhisan nidaam sax ah in la gaaro ee laga guuro nidaamkan beelaha waxa nasiib darro ah xukuumadda hadda jirta Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu hogaaminayo inay la soo baxday 3 sano oo ay jirtay inay isku dayday inay ka leexato dariiqii dadkan ku heshiiyay oo ugu horeysay inay la dagaalanto nidaamka federaaleynta dalka oo ay dhammaan qawaaniintii iyo waxyaabihii u baahnaa in laga wada tashado ay hareer bartay oo ay dhagaha ka fureysatay in ay ka garnaqasato ama ka wada hadasho sidii khayraadka dalka loo qaybsan lahaa sidii nidaamka awoodaha loo maareyn lahaa sidii dadka mas'uuliyiinta ah ee maamulada xukuumadda la isku soo dhaweyn lahaa
sidii midnimada loo ilaalin lahaa taa waxa ay ku beddeshay inay hawl ka dhigato inay la dagaalanto maamulada dalka waxaad ogtihiin wixii ka dhacay maamulada dalku aan rabin inaan aad ugu noqnoqdo waxyaabaha hadda u dambeeya oo socdana dadka Soomaaliyeed ay ka dharagsan yihiin waxaad ogtihiin ciidamadii loogu talagalay in lagula dagaalamo argagixisada iyo nabadiidka iyo dadka aan doonayn dawladnimada xasiloonida ee dalalka ay noo tababareen in meelihii deganaa oo xasiloona ee lagu qabsanayo waxa ka socda gobolka Gedo oo ah magaalooyin xasiloon oo shabaabka ka xoreysnaa magaalooyinka Doolow balad xaawo luuq in ciidamo lagu daadgureynayo ciidamo la yiraahdo haramcad waxyaabaha yaab kale waxa weeye haddii haramcad loogu talagalay inuu ariga reeraha uu dawacada cunaysa ka cunana oo shabaab loogu talagalay tale ahaan lahayd laakiin haramcad xoolihii iyo dadkii cunaya runtii waa arrin aan fiicnayn suurad xun ka dhalinaysa Soomaalida dhexdeeda oo abuuraysa nidaam dadka Soomaaliyeed ay ka soo doogayeen oo ah in qod caaradiisa la isku maamulo arrimaha noocaas runtii waxay walaac gelinaysaa Puntland sida hadda wax ku socdaan hadday ku sii socdaan waxaan halka marka jeclahay falanqaynteena oo qoraal iyadoo soo bixi doonta aan ka soo jeedinayaa waxa ay xukuumaddu isku raacday inay bulshada reer Puntland u soo jeediso in la isugu yimaado shir wada tashi ah oo looga tashanayo aayaha Puntland iyo mustaqbalka Soomaaliya sidoo uu ekaan lahayd iyo waxyaabaha caqabada ku noqday dawlad dhiska dalka Soomaaliya siday muwaaqif midaysan uga qaadan lahayd waxay xukuumaddu ku baaqday in 15 bisha saddexaad 2020 magaalada Garowe la isugu yimaado shir wada tashi ah oo ay ka qayb gali doonaan dhammaan golayaasha dawladda heer federaal iyo heer state waxaan ugu baaqaynaa xubnaha labada gole ee dawladda federaalka u matala Puntland inay shirkaas ka soo qayb galaan waxa sidoo kale ugu baaqaynaa siyaasiyiinta reer Puntland ismada reer Puntland waxgaradka aqoon-yahanka ururada dhalinyarada iyo bulshada iyo cid walba oo danaynaysa dalka mustaqbalkiisa shirka wada tashiga ah waxaan rajaynaynaa in uu noqdo mid si wanaagsan loo abaabulo oo ay ka soo baxaan waxyaabo udub dhaxaad u noqon doona adkeynta midnimada reer Puntland iyo doorka ay ku leedahay reer Puntland dib u dhiska dalka Soomaaliya sidoo kale waxa ay halka baaq u soo jeedinaysaa xukuumadda Puntland ee dawladda federaalka ah madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Khayre oo ah iyo labada gole ee baarlamaanka in ay dib u milicsadaan hanaanka dawladdu ay ku socoto oo ay wada tashiga iyo falanqaynta arrimaha xasaasiga ah ay ka wada shaqeeyaan inay ka waantowdo waxyaabaha ay ka sameynayso dadka Soomaaliya dhaxgalada aan fiicnayn iyo dhaqaalihii dalka oo lagu burburinayo sidii nidaamka dawladnimo loogu ciyaar lahaa waxaan kaloo halka baaq uga direynaa xukuumadaha dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka ah oo iyaguna aan rajaynayo badankoodu inay marayaan marxalada aad u adag oo ay badankoodu wajaheen marxalada dhaqaale iyo kuwa amni iyo dhulkooda inta badan ay argagixiso ay joogto waxaan la qaybsanaynaa dhibaatada haysata waxaan diyaar u nahay inaan kala qayb qaadano sidoo kale waxaan ku boorinaynaa inay iyaguna kaalin ka qaataan isu keenida dadka Soomaaliyeed ee hadda xaalkiisu adag yahay waxaa sidoo kale baaq u direynaa siyaasiyiinta iyo waxgaradka dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay qadiyada Soomaaliyeed oo waqti badan la soo baxshay oo maal iyo waqti miir badan ku soo baxay oo bulshada caalamku hadda intii aan ka soo arkay ay quus taagan yihiin oo aan ka baqayno in qadiyada Soomaaliya dhagaha laga laabto dadku xiiseyn waayaan inta in ka badan inay u muuqato dhaqaalihii iyo canshuurihii dalalkooda ay ka keeneen in god lagu gurayo waxaan u baahannahay arrimahan cakiran inaan ka baxno waxaan u baahannahay heshiis adag oo dhab ah oo aan cid iyo koox iyo qof uusan ku xadgudbi karin oo la ilaaliyo waxaan ugu baaqaynaa dadka Soomaaliyeed iyagana diyaarna u nahay in ay iyaguna arrimaha Soomaaliya ka tashadaan oo annaguna aan diyaar u nahay inaan taladaas qayb ka ahaano meel kasta oo lagu qabto iyo goob kasta waliba haddii nalaga codsado aan diyaar u nahay inaan deegaanada Puntlandna aan ku martiqaadno sida ay u tashanayso reer Puntland dadka Soomaaliyeedna inay u tashadaan waxaan mar labaad aan rajaynayaa in ay baaqan cid walba uu ku socdo ay si waafi u dhageysato ay garnaqsato aysan ka qaadin
colaad hor leh bal ay ogaato in ay si dhaba inaan maanta hadalno waxaan ugu kallifay wax badan ayaan madaxda dawladda Soomaaliya la hadalnay wax badan ayaan xiriir la sameynay wax badan ayaan aan ka codsanay in sida lagu socdo wax laga bedelo laakiin waxa muuqata aamuskeen inuu dhibaatada qayb ka noqday oo annaga ruuxadeena loo qaatay inaan raalli ku nahay sida wax u socdaan marka Puntland inay cadayso waxa socdo inay raalli ahayn golayaheedii xukuumadda ay u matalayay mas'uuliyadda fulinta lahaa ayaa go'aankaas qaatay waana rajaynaynaa golayaasha kale ee dawladuna inay sidaas oo kale dareenkooda uu cabiran yahay maxaa yeelay xukuumaddu markii go'aankan ay qaadanaysay ma aha wax iyada ka soo fulay waa dareenka shacabka iyo talooyinka nooga imaanayay ama xubnaha baarlamaanka ama dadka kaleeto ee maaragtay mas'uuliyiinta ee dalka joogay iyo waxgarad fara badan oo runtii iyaga naftarkooda walaac qaba ugu dambeyn waxa hadalkay ku soo koobaya in dadka reer Puntland meel kasta ay joogaan ilaaliyaan midnimadooda wada jirkooda ilaashadaan wanaagga ay haystaan dawladooda ilaashadaan horumarkooda ilaaliyaan waxaan halka baaq uga dirayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee waayadan dambe aad khibrad ugu yeeratay xagga media waxaan baaqayga aan oranayaa ciidanka dad difaaca maaha kuwa qalabka sida ee militariga iyo hubka sito kaliya wuxuu u baahan yahay dadka Puntland dad difaaca oo afku difaaca waxaad ogtihiin casriga hadda jira ee media wuxuu lagu soo siiday waliba dawladda Soomaaliya adeegsataa askar fara badan oo si xun u dhaqmaysa oo media gashay oo dhalan habaabinaysa dadkii public opinionka ra'yigiisa oo fidna ka shaqaynaysa oo waxaan jirin shaqo ka dhigata lacagtii dadka Soomaaliyeed lagu horumarin lahaa waxa lagu baabi'iyay arrimo kale oo aan dalka wanaag u ahayn inta marka aan ka tago waxaan rabaa qodob xasaasi ah inaan si gaar ah u ishaaro oo qodobka ku saabsan arrimaha waxbarashada runtii Puntland ma rabo inaan maanta halka ka sheego taariikhdeeda waxbarasho iyo meesha ay soo martay laakiin waxa ugu filan Puntland in dhammaan hay'adaha tacliinta ka shaqeeya ee Soomaaliya ay mar walba oo ay qiimeyn ku sameeyaan tacliinta Soomaaliya ay nambarka koowaad siiyaan Puntland sida loo fidiyay tayada tacliinta sida loo maamulay iyo sida aanan eexda lahayn ee inta badan ee ardada Soomaaliyeed loogu xaq sooro xilliyada ama imtixaanada ay jiraan ama ay jiraan scholarship-yada Puntland macsuum maaha khaladaad uu dhici karaa muddo dheer laakiin waxa sharaf ii ah inaan anigoo naftarkay ka mid ahaan jiray dadka tacliinta ka shaqeeyay qiimeynteedana dad badan uga fiican waxaan qirayaa tacliinta Puntland inay meel wanaagsan oo lagu faani karo ay haysato ayna ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn ama makaasibta ugu waaweyn ee Puntland soddonkaaga sare gaartay oo u baahan inay ku faraadegto arrinta ku saabsan shahaado sideedaba waxaan fiicnaan lahayd inkastoo aan ka xumaa inaan halkoo kale ku sharxo waa aqoonsasho ardaygaasi inuu fasalkaas imtixaan u fariistay muddadaasna uu soo dhiganayay macno kale oo ay leedahay ma leh waxaan la leeyahay shahaadada qaranka iyo wax ka jira ma jiraan wax qaran uu bixiyo uu leeyahay oo dadkoo dhan ka dhaxeeya baasaboorka ka jira in dadku aad u fahmaan weeye shahaadadu waxay ku xiran tahay hadba ciddaas gacanta ku haysa aniga oo madaxweyne ah ma bixin karo shahaadada iskuul ku yaala magaalada Baargaal saa waxba kama ogiin waxa bixin karo oo ogaan kara oo sixi kara macalinka iyo maamulka iskuulkaas jooga waxa la rabaa waxyaabaha yaab kale oo wasiirka waxbarashada federaalka aan leeyahay wuxuu leeyahay shahaado suur kama noqon karo hadday Puntland maamulkeeda waxa ay tiraahdo waxaas waa waxaas ee dawladda federaalka sheegaysa leedahay ma in aqoonsanin ma haddaan annagu fiirin waxa halka ka dhadhamaya nidaamka ah dalka in hal meel looga taliyo waxa halkaas uu taxaddi ku yahay nidaamka federaalka dadku heshiiyeen waxa marar badan dadku celiya waa wax wanaagsan in la sameeyo centralized kelmadda centralized dalku waa markuu yahay xukun dhexe uu leeyahay dalkan waa decentralized waa federalism state walba shu'uuntiisa isaga u madax bannaan inuu maamusho dastuurkaana faraya marka laga tago lacagta dalka jinsiyadaha xuduudaha iyo ciidamada qaranka afar qaybood baa lagu soo koobay inay dawladda dhexe leedahay waxa kale wada shaqayn baa laga rabaa
wada shaqaynta annagu maanta aan arkayno iyadoo dalka Soomaaliyeed manhaj midaysan uusan lahayn iyadoo dalka Soomaaliyeed standard tacliimeed oo isku mid uusan lahayn iyadoo dadka Soomaaliyeed waxa loo dhigaya aan shaki ka qabno waxaad maalin dhow idaacadaha ka maqlayseen nin jaamacadaha Muqdisho ka dhigayay oo la yiri wuxuu ahaan jiray al-shabaabka madaxdiisa waxaan noocaas annaga wax kuma darsan karno waxaan u sheegaynaa dhalinyarada iyo dadka Soomaaliyeed Puntland iyadoo dawladda Soomaaliyeed jiray ay ardaydu ka graduate garan jirtay jaamacadaha dhigan jireen marka yaana lagu buuq lagu furin shahaado xamar laga bixiyo mustaqbalkiina kuma xirna taas ay sheegayaan anana inii garanti gareynayna shahaadooyinka hadda xamar waa laga bixiyaa la yiraahdaa ee suuqyada bakaaraha xamar lagu gado waa ceeb in dawlad qof mas'uul ah inuu waxaas oo kale meel la yimaado waan ka xishoonnay inaan ka jawaabno waana ka digaynaa dadkeena in lagu jaha wareeriyo dadka noocaas oo kale in loo jawaabana ma mudna xaqiiqada marka loo hadlo marka waxaan rajaynayaa in dadka dhalinyarada oo aan si fiican u garanayo badankooda in ay dadaal badan leeyihiin jaamacadaha ay tageen kaalin weyn ka qaateen inay walwal ka qabin mustaqbalka tacliintooda iyo mustaqbalka ayahooda inta dadkooda iyo dalkooda iyo dawladooda ay u joogto taas aan ballan qaadaya insha Allah aad baa u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh